daruur hoortay daad soo rogmaday danab hilaacaya dabaylaha xagaag iyo hanfida duurku leefaya dugsi ragan ka gelin baa jiroo dayray cadowgii ilaahay hortii baan hawsha kuugu dhiibnaye adiguna horseedkan hayaan lagu abaaldegin ee harabbiyooniya nagu fura hirgeeda leh hogay shabiya noo noqon horumar gaare taliskii guud ee ciidanka dawladda puntland kontaryaafraad aad baan ugu faraxsanahay madaxweyne ku-xigeen ku soo dhowaada gacmo furan ahmiyaddeena koowaad iyo labaad iyo saddexaad ay noqoto ciidanka iyo nabadgelyada haddaan aad u himileeyey haddaan ciidamadu heegan galanoo hubdada diidin hubka cadowga lagu gubo haddaan maalka loo hurunin hudud iyo afmiishaar haddaan jeelka lagu heegin haddaynaa nafteenna u hibayn oo u hurin ciidda iga wallaan habeen qura xornimo idinku heesayn anigaa dhulkaygow dharartiyo habeenkii dhammaha kuu sidaayo madaafyada dhacaysiyo dhammacdiyo gantalaha kuugu dhiiranayay dhulkaygo waxaa soo wajahay dagaallo iyo duruufo adag oo kala duwan oo colaad iyo abaarba leh waxaa ugu weyn oo mar walba gaashaanka u daruurayay oo garabka ugu weyn u ahaa ciidamaday ahaayeen waxaa dalkan uu saldhiggiisa nabadeed iyo nololeed iyo wadajirkiisa saldhig u ah waa ciidanka annagana waxaa naga go'an waddadii hore ee madaxdii hore qaadeen inaan sii adkayno ahmiyaddeenna koowaad iyo labaad iyo saddexaad ay noqoto ciidanka iyo nabadgelyada waxaan insha allah hortiina ka ballan qaadaynaa inaan ahmiyad gaara siin doonaa ciidanka sidii dibahaweyn loogu samayn lahaa iyadoo la ogyahay muddadii u dambaysay inuu dagaallo badan oo aaga kala duwan ka furan iyo isku dayo badan oo cadowyo kala duwan oo magacyo kala duwanle ay soo weerareen waxaan si gaara ilaahay idankiis ahmiyad u saari doonnaa si ciidanka mooralkiisa iyo horumarkiisa uu u kaco ciidamada mar walba u taagan dhiirigelintooda oo ay ugu horreeyaan fannaaniinta iyo baambeeda iyagana inaan ahmiyad gaara siino haddii ilaahay idanka dhigo waan dareemi karnaa duruufaha ina haysta idinkuna waad dareemi kartaan duruufaha puntland haysta marka waxaan rajaynaynaa inaan annagoo isku aragti ah duruufaha isla tixgelinayna inaan u istaagno inaan dadkeenna danihiisa ka shaqayno waxaan rajaynayaa maanta oo aynu soo booqannay in ciidanku uu farxo oo ilaahay ciidankiis aan hilib geel inay qalno aan maaragtay iniga farxinno ciidamada kaleeto oo runtii suugaanta quruxda badan soo bandhigana dhiirigelinno idinkoo dhanna waxaan rajaynayaa waad og tihiin muddadii yareed aan joognay mushaharooyinka ciidamada bishii ugu horraysa waan siinay waan sii wadaynaa laakiin sidii hore ku sii wadi mayno wax la taaban karaan ku sii wadayna aniga dhulkaygo